kusoo dhawaada barnaamijkeena astaan horumare studio-ga Melbourne aad uga barateen Puntland TV waa Cabdi Cilmi oo idin leh mar labaad kulanti wanaagsan barnaamijkeena waa astaan horumar waxaan ku eegi doonaa wareysi aanu la yeelanayno Safiya Ashkir Ali oo ah gabar Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland Safiya waxa ay Soomaaliya ka tagtay 1989 oo ay u guurtay wadanka Sweden muddo dheer kadibna waxa ay u guurtay hadana wadanka England ee UK muddo dheer ka bacdi Safiya waxay ku noqotay Soomaaliya gaar ahaan waxay tagtay Puntland iyadoo oo markaas safarkeedu ahaa booqasho laakiin markii ay tagtay Puntland ayaa waxa ku dhashay in ay loo baahan yahay wax qabadka maanta socda ee u baahan in reer Puntland ay ka wada qayb qaataan Safiya Ashkir Ali waxa ay dareentay markaa inay u baahan tahay in ay markaa wax ku biiriso dhulkeeda iyo dadkeeda waxay bilowday iskuul dhismihiisa iskuul lagu daryeelo ama lagu xanaaleeyo caruurta yaryar ee agoonta ee markaa u baahan daryeelka gaarka Safiya waxa ay hadda ku sugan tahay wadankan Australia gaar ahaan studio-ga Melbourne oo ay marti noogu tahay Safiyana waxaan markaa ka wareystay bal inay nooga waranto ujeedka safarkeeda ee halkan Australia gaar ahaan Melbourne Safiya ku soo dhawow Puntland TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wal abdi wa mahadsantahay waa dhawahay aad baan kugu mahadcelinayaa soo dhaweynta igu soo dhaweysay TV Puntland Safiyo safarkaaga halkan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne bal nooga warbixi ujeedka safarkaaga muxuu yahay ujeedka safarkaygu waxa in aan horta booqdo la kulmo jaalada weyn reer Puntland degan Australia gaar ahaan Melbourne saan kala warqaadano iyo hadaan rooyukeena iyo hadaan reer Melbourne nahay waan ku farsanaynaa imaado walaalo badan iyo dad badan oo aqaan horaan isku arag baan ku arkay andan boqoshada labaad aan gaar ahaan u socdo waxay tahay waxa jira barnaamij aan wado in barnaamijkaas aan u sheegto wixii ka qaban karaan iyo dalkii wax kasta guud iyo gaar ahaan waxaan wada qabsan karno inaan ka wada tashano wadankii mar dhow waa tagtay oo aad ka soo noqotay bal waxaad ku soo aragtay Safiya wadankii anu waxa igu horeysay 2009 waagas markaan tagay uma badnaan jiray 2 beri 3 beri joogi jiray kasoo tagay jiray laakiin 2011 baan aad u joogay 2 bilood joogay markaan dadka dhax galay waxaan ka baahi badan oo jirta waxay dawladda haysan alxamdulillah dawladda waa haysanaa laakiin dawladda kaliya wax ma qaban karto dadkii markaan dhax galay waxaan arkay inay wax aad u jilicsan yihiin caruurtii iyo haweenkii gaaraan caruurta agoonta markaa go'aan waxa qaatay inaan bal maadaama wadanka u badan doono insha Allah aan kuleej agoonta lagu xareeyo reer Puntland iyo Soomaali qof kasto meel agaarka u dhow inaan bilaabo alxamdulillah waa bilaabay maxaa kugu dhaliyay marka iskuulkan gaar ahaan agoonta maxaa kugu dhaliyay inaad markaa ku dhaqaaqdo dhismihiisa waxay u dhaliyay waxaan tagay magaalada Galkacyo waa dhax galay dadkii oo fiirsaday waxaan arkay arday badan dhalinyaro iyo ilmo yar badan oo agoon oo wiilcaado aan la kulmay gaar ahaan aniga ay taabtay oo iskool dhigan waalidkooda iskoolku awoodin way cuntadoodii iyo dharkoodii iyo gurigoodii baba ay qaadi ka taagnaayeen marka go'aan waxaan gaaray haduu Ilaahay idmo Ilaahay ila garab galo inaan kuleej sameeyo si ardada wax u bartaan oo u noqdaan ilmo Soomaali bari ilmaha kala caawin qofkii Soomaalnimo lagu koriyo bari Soomaaligu asaga noqonayo dad kale dhibaataysan uu caawinaya marka qof kasta naga mid ah inuu qofka dhibaataysan iyo agoonta qaar ahaan aan caawino dadka sida gaarka ay u qosaysa arintan kula wada adiga marka laga reebo waa kuween masajiraan anigu waxaan golay fikradan keenay markuu horeysa waxaan la'aantooda aan sameeyeen oo dhaqaaqeen waa hooyaday macaan gabar walaashay xalwo iyo gabadhayda andan garbahan ku duulayo waa jaalida reer Puntland dhamaantood ma waxaan kaliya sameeynayo fikradan keenay dhibaatada arkay dhamaan waxaan u baahanahay walaalaha reer Puntland qof kasto Soomaali ah oo wax ka geysan kara dadka maadaama adigu aad ka timid dibadda dareenka iyo fikirka aad la timid dadka gudaha jooga oo aad arintan u soo bandhigtay sayba u arkaan iyo ma sha Allah dalka aad buu faraxsan bus dadku u baahan wax uu qabta dalii dibadna waa isku baahan yahay dawladda Puntland wax madaxweynaha maanta jooga Allah xafiid Cabdi Weli waa tuu ku baaqay Puntland ha isku tashato Puntland ha isku tashato micnaha ma aha inay dawladda wax qaban karto dawladdu waa shacab
shacabkana waxaa u badan wax qaban karo dowladda Soomaaliya iyo Puntland bay ka dhisantahay mustaqbal Soomaaliya ku dhisan waa qurbo joogta marka qurbo joogta waxa u baahan tahay in dalkooda tagaan inta wadamo kale u dalxiis tagayno waxa u baahan waddankooda dalxiis tagaan koos mar waxay arkayaan dhibaatada waddanka jirta mar dhaqaale waddan kale ku baxay waddankooda gelinayaan mar waxa laga fikrado badan oo qof badan oo ku jira inuu markaas soo saar la wax qaban lahaa marka waxaan kula talinayaa inaan isku tashado aan ka dhabayno kuwa gudaha jooga kuwa dibadda joogaba aan ka wada shaqeyno iskuulkan hadduu ku hori karo oo ilaahayna kula kala oo aad yani ku guulaysato mashaariic kale oo ku qorshaysan ma jiraan insha Allah markaan ka dhameeyo ina meelaha kale magaalooyin kale Puntland ka mid ah aan tago wixii dhismo u baahan isbitaalaan u baahanahay station Puntland waa dawlad cusub oo dhalatay dhaqaale badan ma lihin marka qasab waxyaabo badan baan u baahanahay inaan qabsano oo annaga ahaan inaan qabsan siiba qurbo joogta aan qabsano u tahay iskuulkan Safiya blowga oo aad wado xagee buu ku yaalaa iskuulkan wuxuu ku yaalaa horta kalgacyan ku damcayna ka sameeyo gaar waa indheeyay marka meel agoon haday noqoto ama college noqoto waxa ku fiican meel xoogaa baxsan ama dhul waasacood weyn inuu qofku helo ama meel ka baxsan magaalada weynba kusoo meel agoon lagu xareeyna waa meel wiilay gabdho lagu talgalay lagu xareey insha Allah marka waxaan u doorbiday meel 20 kilomitir jirta kalgacyo cagaaran la dhaho iskuulka magaciisa waxa la dhahaa Orfaraken ama agoon daryeel Safiyo bal waxaad iga sheegtaa dhismaha iskuulka xagga hadda intee maraya ma konton boqolkiiba konton buu maraya ma boqolkiiba 70 maxaad se u baahan tahay inaad ku dhamaystirto horta kol markii wax la dhisaayo ama dhismo college noqoto anu insha Allah waxaan jeclahay college weyn oo Soomaaliya ama Puntland kii ugu horeeyay weyn inkastoo jeclahay ku kala badan inaan dhisno laakiin kii ugu horeeyay inuu noqdo insha Allah hadda wuxuu ii dhismaaya 25 qolan dadnay darbigii weynaa laakiin wax badan baa dhiman qaybtii gabdhaha dhiman waxa dhiman meeshii sportska waxa dhiman masaajidkii wax badan baa ka dhiman laakiin hadda waa 30% aan dhisan 30% maxaad u baahan tahay marka inaad ku dhamaystirto waxaan u baahanahay dhaqaale intee lag baa u baahan tahay waxaan u baahanahay in isku tashano horta number 1 teed kale waxa dhibatid ba aakhira ka hore ina wax dhibano oo dalkeena aan geysan koos waxa sadaqaysato siiba dadkaaga asiisato ba sadaqa ugu fiican mar sadaqa inoo tahay marna dadkeeni baan wax ku taraynaa waxaan u baahanaa ugu yaraan markaan qiyaasay adigu 100 kun lacag ah insha Allah hadaan isku tashano kan iska daayay jidadka iyo eelbooro iyo isbitaalada wax ka samaysan karnaa waa annaga hadaan Ilaahay tala saarno isku tashano jaaliyada halka kan Australia maxaa ugu baaqaysaa barnaamijkan inay kala qabtaan jaaliyada Australia waxaan ugu baaqaysiyo Melbourne ilaa Melbourne la joogaa inaan wax qabsano waxaan aaminsanahay dadka Europe iyo Mareykan markaan joogno jaaliyada Australia inay xoogaa naga dhaqaale fiican oo shaqo badan bay haystaan oo wada shaqaysta inay ka sadaqaystaan oo sadaqo ilmahooda u baxsanaysa ayaga u baxsanaysa aakhir u fiican tahay adduunka u fiican tahay dalkiina uu u baahan yahay ilmahaaga iyo adiga waxa sharaf ku leedahay marka masaakiinta iyo dadka wadanka jooga aad wax u tartid ba adiga kuwaagana wax qabsan karaan wax noqon karaan waxaan wax ku nahay ama aan ku qurux badan nahay ama كنا مجا Soomaaliya magaca Puntland aan ku nahay waa kuwa dalka jooga ma ku inay dibadda jooga markuu dibadda waxa laga rabaa in dalkii wax u qabno si magacii aan wada qaadano dad wax wada qabsado wax wada haysta aan u noqono sabay dad badan baa barnaamijkan daawanaya gaar ahaan reer Puntland dardaaranka reer Puntland muxuu ku aadan yahay horta reer Puntland qurbo joogtan mid baan dhihi dil joogtan mid baan dhihi qurbo joogtan mid baan dhihi qurbo joogta waxa waaye dalkaaga baad horta dad ku nahay dalkeena dad ku nahay maahan qof kasta haduu dhaho wadankiiba ka warsugay intuu wax noqon doono wax ka dhigi kara wadankii waa anaga hadaan xagga labada dhinac ma iskaashano anaga un baa wadankii wax ka dhigi karna ma in qolada dalka joogto kaliya la sugo waxaan ku boorin lahaa qof kasta oo fasax qaata ama qof kasta oo marka raba inuu holiday ama meel kale aado inuu wadankiisa tago hore uu soo arko wadankii nabad baa ka jirta horumar baa ka jirta wuxuu si baahan yahay wali aqoontan u baahan maskaxdan u baahan waa aragnimadan u baahan yahay way Soomaalidu xitaa markii biyo qabay budo qabay waxba isku darsadaan hadii qof walba uu fikrad ka inuu isku darsado fikrad inta slimka la qaato waxaan aaminsanahay in adduunyaha ka hormari doono inaan wax qabsan karno marka isku tashano tashiga madaxweynaha ku dhawaaqay aan ku tashanaan tashiga ma afka kaliya laga sheego waa inaan ku darnaa wax qabad jeebka isticmaalnaa gacanta isticmaalnaa afka isticmaalnaa dalkii aan tagnaa teeda kale ma Puntland markaan tago Puntland inaan wax ka doono ama dawladda aan wax ka doono dawladda Puntland waan wax tarnaa oo anaga wax tarnaa Puntland dhaqaale badan ma leh waa dawlad cusub dhaqaalaha meel yar bay ka soo galaan marka waa in anaga kabnaa si biri anagana wax uga helno marka waxaan kula talin lahaa inaan isku kaashano is dhageysano
wax qabsanay radaan rahay qurb joogto wadankiina u badano dawladda iyo madaxweynaha iyo wasiiradiisa waxa ku tan lahaa horana Cabdiweli waa u sheegay dadka horumar shirku kulanay madaxweyne walba wuxuu jecel yahay inuu ka tago wax u reebo oo akhriyo adduunka ma anfaca laakiin waxa kaabi kara kilgiis wax ma qaban karo waa dadka ku hareeraysan waxa fiican madaxweynaha inuu si qofna u fiirin kana hebel iyo kana reebel ka soo jeedo reebel ka cidoono inta wax qaban karta uu qabto ilaa uu saddex isku aabaxta ahaad uu keeno oo wax qabtaan especially wasaaradda waxbarashada caafimaadka iyo haweenka haddii inta aan dhisno waxaan aaminsanahay inaan dadkeena horumar aan gaarsiin karno safiyo gaar ahaan barnaamijkan caawa gaar ahaan waxaan jeclaan lahaa iyaad jeceshay inaad u mahadnaqdo oo aad mahad gaara ama midguun aad u gudbiso horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ii suurageliyey inaan barnaamijkan sameeyo bilaabo caafimaad inay igu simay inaan sameeyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa oo la'aantooda waxba aan qabteen hooyaday macaan sinaa jaamac qoordheer walaashay xalwo gabadhayda aadka u jeclay seeri oo la'aantooda waxba qabteen inaan wax socdo hadda meel aan tago la'aantood ma socdo waxna ma qabteen waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan intii kala qayb gashay af iyo adinba meel walba adduunyada ay ku joogaan special dad gaar ah is ogii inta aad igala qayb qaadatay kus magac hadaan sheego magacyadii qaar baan ka tagi karaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa TV-ga Puntland oo la'aantiisa waxa noo suuroobi kareen insha Allah ilaahay waxaan ka baryaa in noqdo TV caalami ah adduunka laga fiirsado meel kasta waana sameyn karnaa aan sameyno TV Puntland dhowr xabaan sameysan karnaa adduunka ka sameysan karnaa waxaan kaloo mahadcelinayaa reer Australia oo aad ii soo dhaweeyay gaar ahaan gabdho badan magacooda ma sheega because qaar baan ka tagi karaa waxaan leeyahay jazaakallah ilaahay naga abaal siiyo adiga cabdi la'aanta aan maanta suura gashay in halkaan fadhiyo walaalkii cameraman-ka ah marka dhamaantiin aan isku tashano barnaamijkeennii astaan horumar ee halkan caawa ay martida inoogu ahayd Safiya Ashkir Cali waxaan jeclahay inta aanan ka bixinin in aan u mahadceliyo Safiyo ogolaanshaha interviewgan ay halkan noogu timid studioga gaar ahaan waxaan aad u jeclahay inaan gaarsiiyo dadka halkan daawanaya barnaamijkan iskuulka agoonta ee ay Safiya ka dhistay magaalada Cagaaran waxa u baahan yahay taageero ballaaran oo aan loo kala harin wax yar baa dhiman waxaan filayaa inuu yahay mid wax ku oola ku dayashana mudan dadka reer Puntland ama dadka Soomaalida ahna waxaan ugu baaqayaa Safiya barnaamijkeeda inuu yahay mid loo baahan yahay in gacan weyn la siiyo haddii Ilaahay idmo Safiya halkan waxay joogi doontaa muddo magaalada Melbourne iyo Australia gobolada kaleba waxayna ay raadinaysaa taageeradeena waxaan rajaynayaa inaad fahamtaan oo aad garab istaagtaan barnaamijkeennii astaan horumar ee studioga Melbourne wadanka Australia aad uga barateen waxaan jeclahay inaan halkaa ku dhaafo asbuuca dambe intaynu ku kulmayna barnaamijka astaan horumar waa Cabdi Cilmiyo idin leh isma dhaafno iyo noole kulanta